بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayaan idin salaamaya asxaabtayda quruxda badnayd, sharafta lahayd, sidee tihiin, ma wanaagsan tihiin? alxamdulilah, anaga waan fiicannahay. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaa inuu inoo siyaadiyo wixii intii dhib haysto ilaahay dhibka inuu ka saaro, inta dhimatay allaha u naxariisto, inta xanuunsanaysa ilaahay ha inoo caafiyo, xanuunkana dembi dhaaf allaha uga dhigo, inta caafimaadka qabtana allah subxaana watacaala ha u siyaadiyo. ilaahay waxaan inooga baryay inaynu masiibooyinka dhacaya, abaaraha, wax walbaba inaynu ilaahay subxaana watacaala ula noqono, kuna samirno biidnillaahi baari. allaahuma aamiin. intaas kadib insha allah waxaan rabaa inaan halkan arrin yar kusoo gudbiyo, walowba maaragtay xagga hadalka iyo maaragtay xigmadaba maaragtay dee yacni dadkii ilaahay maaragtay qaybta u siiyay ay aada uga hadleen. haddana waxaan jeclaystay inaan ka hadlo arrinta sheekh umul iyo maamo khadiija. macnaheedu maaha inaan u garnaqayo oo dhahayo kanaa khaldan iyo kanaa khaldan, laakiin si guud ayaan rabaa insha allah haddii ilaha yiraahdo inaan uga hadlo. hadafkayga ugu weyna waxaan kaga hadli doonaa degdega iyo maaragtay sida u jawaabista culimada loogu soo degdegayo, iyo arrinta kale oo ah iyadana ilhaan cumar oo shiikha hadda lagu haysto. ilhaan buu yacni qabiil ahaan ku ammaanay, khadiijana wuu ku caayay goorta ay tahay iyo xilliga ay tahay. insha allah inaan intaan ku halkan kaga hadlo. waxaana ku bilaabayaa arrinta maaragtay khadiija arrinta maaragtay ilhaan cumar. dadku waxay aada u soo celcelinayaan ilhaan cumar ayuu shiikhu qabiil ahaan ku ammaanay. horta dadka culimada dhagaysta oo ku xidhan way dareemayaan kilibkaas hadda la wareejinayo xilligu ahaa, laakiin dadkaan culimada ku xidhnayn ama markaas ogeyn ma ogaan karaan xilligu ahaa. ilaahay qudradiisa waxaynaga maqan markaanu wax aragno, intaadan waxa ka ficilka qaadan ama ka hadlinin, waxaa wanaagsan inaad soo baadhid oo waxan goormuu ahaa, ma hadda ma mar hore ahaa, inaad soo hubsado. horta dadka inta og iyo inta soo baadhay iyo intii la socotay xilligaasba kilibkaas shiikhu uu videogaas muxaadarada xilligaas uga hadlayay, waxaan u malaynaya inay maalin jimco ahayd oo qodobad jimcaha kusoo qaatay. waxay ahayd ilhaan cumar markii ugu horeysay ay xilka qabatay ee ay kongareska ay maaragtay ay xilka ka qabatay ugu horeysay ee ay ka hadashay yuhuuddu dhibaatada ay ku hayso Falastiin, ee ay ninkii maaragtay wuxuu ahaa ma garanaya ay su-aasha ku weydiisay ummadda islaamka oo dhan u riyaaqday, gaal iyo muslimba inta dee dhibaatada dulmiga nacabi ay u riyaaqeen. waxay ahayd xilligaasay ahayd, ma aysan ahayn intii ka dambeysay oo ilhaan oo ay maaragtay ama qoomaluu taageertay ama maaragtay waxyaalo aan looga fadhiyin ay la timi, ma aha. taa macnaheeduna maaha inaan gabadha hadda aniga dembi ku qaadayo ama xukumayo, ma aha. laakiin xilligaas iyo xilliga uu shiikhu ka hadlay ma aha xilligan ilhaan ay maaragtay waxyaalo badan oo maaragtay muslimka maaragtay againstku ay samayso, maaha. waa markii u horeysay ay xilka qabatay ee ay ka hadashay dhibaatada Falastiin lagu hayo. ay qofkii nin ma kala garanayo wuxuu ahaa nin kolley ay su-aalaha ku weydiisay maaragtay guriga baarlamanka baan ma inuu ahaa meel ay joogeen kolleyba ay su-aalaha ku weydiisay. waa xilligaas weeyaan, xilligaasuna shiikhu ka hadlay. berigaasna shiikh iyo shariifba waa laga hadli jiray oo waa lagu faraxsanaa. marka taas taa idinkaga ekaato dadka hadda dhahaya shiikhu hadduu ilhaan ka hadlay, maya kama hadlin. allah ka cabsooda, waxaydin hubinina ha iska sheeginina. kelimad kastoo maanta afkiina ka soo baxdana dib baa laydinku celinaya. haddii shaki iyo madmadow waxa kaa galay oo aad aragtay kiliib la soo gooyey oo ummadda lagu jahwareerinayo, waxaa la sameeyaa dib baa loo eega goormuu ahaa, goormuu dhacday, goormuu sameeyey baa dib baa loo eega. taas waxaan uga gudbayaa arrinta ilhaan. ittaqullaa baan idin leeyahay dhammaantiinba, ilaahay ka cabsada, ummaddana ha isku sii gubinina. tan kale oo la leeyahay hadda shiikha lagu haysto, horta aniga ka qof ahaan yacni ka bili aadan ahaan waxaan jeclaa shiikhu qaab uga duwan maamada inuu wax ugu sheego, u nasteexeeyo oo qof kastaaba jeclaa. laakiin runta marka laga hadlayo shiikhu waxa uu ka hadlayo waa wax yacni jira, waa wacyi jiro oo taagan weeyaan, oo inuu laga hadlo waqtigeedii buu ka hadlay. waxaa dadku aada u soo qaadanayaan oo aad ay ugu dhagayaan diintu waa nasteexo. ha sax, diintu waa nasteexo,
kulligan waxaan isku wada raacsanahay inta ilaahay maartay caqliga siiyo dhan sheekhu dawayga islaanta ula hadlay maamada ula hadlay inuu xoogaa kuleyl ku jiray way qurux badan tahay dadka loo qurxiyo sheekada oo hadda loo baalkeeyo laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ma gabdhihii yaryaraa iyo dadkii yaraa wax loo sheegaa mise dadkii waaweynaa ee ayeeyooyinkii ayaa wax loo sheegaa يعني ومشاكل يعني وقت ما دتك عروليه لواني ووقت يعني وحي كمتهاي يعني معجزوين كواوين بي كمتهاي marka horta waxyaalo badan is hordhiga waxa in badan aan arkay gabdho aad ugu sheekha aad inay ugu jawaabaan ku degdegaya oo aad ugu fafakanaya oo ama rag ama dumarba walaalayaalow horta dad tihiin dad ilaahay ka cabsoonaya u jawaabista culimada uma idin degdegteen oo kuma idin fududaateen sababtoo waa warasatul anbiya weeyaan waa dhaxalkii anbiyada weeyaan inaad ku degdegtaan maanta sheekh ku haya ku kalimada ku hadlaya ay tahay qaala allah qaala rasuulullah inaad ku degdegtaan waa wax laga xishoodo weeyaan waxaan isleeyahay waa cilmi daro ina haysata waxa aad loo soo hoosgelinaya oo loogu soo dhaweynaya sheekha oo la leeyahay oo aad loogu soo dhaweynaya iga raaliada koolba iga soo dhaxgalay oo aad loogu soo celcelinaya maxay tahay ceeb weeyaan caawro maaha surwaalka waa la xidhan karaa surwaalka kan ilaahay haddaynu ka baqno surwaalka ama ha ballaadhnaado ama ha dhuubnaado surwaal ma xidhan karna haddaan nahay gabadh muslimada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa jalaabiib aayad qur'aana jalaabiibka inoogu soo dejiyey inaynu is asturno inaynu jidhkeenna asturno weliba waxa gabadha muslimada la faray inay maaragtay harka u ekaato harka hoosiiska marka harkayna u ekaato anigaygan idinla hadlayo jilbaabkii ama jalaabiibkii dhammaystirnaa ma xidhni haddana waana ogahay inay wax iga dhiman yihiin taa macnaheedu maaha inaan isku kambeergareeyo gabadh isqaawisay waxa aad loo soo qaadanaya weliba dumar waaweyn aad u soo qaadanayaan ragga xaggan ba iska dhig dumar waaweyn waxay aad u soo qaadanayaan gabdhaha Sacuudiga surwaalay xidhaan taa macnaheedu maaha gabdhaha Sacuudiga haday surwaal xidhaan inaguna inay xidhano maaha Sacuudiga haduu khamri cabo inagu khamrina cabna maaha hadii kilaabo laga furo inagu furano ku dayano maaha laakiin inay maaragtay shantii tir islaamka mid kamid inuu xaramka Sacuudiga ku yaalo in maaragtay cibaado u aadno in mararka qaar diin loo aado in maaragtay halkii مكة iyo Madiina dhulkii diintu ka soo diinta Nabi Maxamed kaleey salaatu salaam waxay ugu soo dagayay tahay shaki kuma jira nabiga ku aasan ya saxaabti ku aasantay kaleey salaatu salaam nabiga ku aasan yahay dadkii wanaagsanaa ku aasan yihiin maaha macnaheedu inaan isku kambeer gareeno gabadha joogta surwaal bay xirataa may surwaalku waa khalad weynaan surwaal xidhano iyagana Allah ka soo hadeeyo waa gabdho askariyiina sida sawirada la soo qaad Ilaahay ka soo hadeeyo oo maartay jalaabiibka Allah inoo wada dhameystiro laakiin maaha inaynu tusaale u soo qaadano ma aha xaramka Sacuudiga laga xidhaa aan xidhano maaha taas wad ku aan xaslay inaad ku degdegasaan iyada laftigeeda jahal idinka haysto walaalayaal aan waxaan si dardaarana ama nafteeda waxaan la jeclaan lahaa dhihi lahaa u jawaabista culimada ha ku degdeginina waxa aad kale loogu soo celceliyaa kama hadlaan qaraxyada kama hadlaan gabdhaha la kufsado kama hadlaan kan horta waxba ka adag yahay maamadan hadda surwaalka soo xiratay waxa ka sii dhib badan gabadha la farax xumeeyo waxa ka sii dhib badan qaraxa maalin kasta la dhigayo culimadu way ka hadlaan laakiin haddana ogaada culimadu inaguma dhihinin la hawla wala quwwata illa billah culimadu inaguma dhihinin yani soo qaawiyana ma dhihinin ragga ajnabiga la kaliyeystana ma dhihinin dhibaatada inta ugu badan dhacaysa inaga ayaa 70% inaga iskale markaan anigu isqaawiyo markaan isqurxiyo markaan wiil ajnabi la kaliyeysto ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhexdeena uu ka baxaya shaydaan baana dhexdeena soo galaya wuxuu igu sameeyana haaf baan la yeelanaya marka hataa la iska ilaaliyo waxaasoo dhan ka sii weyn culimadu hawsha ay hayso ilaahay subxaanahu wa ta'ala umbaog diintii baa la bedelayaa aayadihii quraanka mugdi la gelinayaa kutubtii baa maanta jaldigii laga soo bedelayaa qoomoluud loo soo kaysiinayaa habeen iyo maalin diinta islaamka gaar ka haya inkastoo ilaahay ballan qaaday inuu diintiisa ilaalinayo haddana diinta islaamka gaar ka hayaan dood bay ku jiraan diintay ku doodayaan habeen iyo maalin way ilaalinayaan dhaqaalay ku bixinayaan
weligeen inaga laynaguma odhanin gaalaa lala yacni difaac la gelgelayaaye kaale qarash bixiya laynama odhanin culimadan habeen iyo maalin marba meel u dawaafaysa hamoodina iska socdaan ee lagjarada marba meel kasoo diinta ayay fidinayaan diinta ayay muujinayaan difaac bay ku jiraan ay ku ilaalinayaan kitaabka rabbi ay ku ilaalinayaan walaalayaalow marka ha ku degdeginina culimada maanta su-aasha fadwadaad shiikha weydiisid markiiba kuma dhahayo oo saa samee wuxuu ka fakerayaa in badan bal qaarkood waxay dhahaan dib baan u soo eegaya maxay diidayaan waxay ogyihiin kelimada ay maanta dhahayaan ee dadka u sheegayaan in berito ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la hortago weydiinayo wax walba taxadar iyo miisaan iyo caqli iyo aayad iyo xadiis ayay ku saleeyaan marka culimada ha ku degdeginina oo ha ku fududaanina oo ilaahay uga cabsada oo hilibka culimada waa laynaga xaaraantinimeeyo culimada ka fogaada oo iska ilaaliya hooyooyinka khadiijo oo kalena dee cimriga iyaga wax loo sheegi lahaa maaha loo nasteexan waa xilliga iyagu anakay iyo ummadaha iyo culimada wuxuu sheegi lahaayeen weeyaan marka ilaahay ka cabsada iska daaya culimadana jawaabistooda ku degdegaysaan iska daaya dad kale aad isla simaysaanoo aad dhahaysaan gabadhaasba way xidhata waa xidhaa walal haddaad adigu surwaal xidhatid aday kuu taala adiga rabbiga laakiin ha sharciyeyn oo ha ku duulin maanta surwaal baa gabadh sacuudi xidhataa kanay xidhataa gabadha sacuudiyada iyo adiga diinta waa u simantihiin culimada markay hadlayaan culimada waaweyn adduunku markay hadlayaan maalin dood meel lecture laga qabanayo culimo carab isugu jirta cid walba isugu jirta waxay dhaheen jalbiibka saxda ah waxa xidhan gabadhaha Soomaaliyeed ba xidhan sharafta iyo karaamada iyo creditka leena siiyana si yar aynaga qaadanina ilaahay waxana ka baraya kulligeen inuu aayadaas kulligeen dumar oo dhan amar bay nagu tahay kuwa oofiya Allah naga dhigo waxa la naga rabaa sida gabdhaha muslimaadka u labistaan waxa leh waa gabdhaha Soomaalida soo xidhan waa gabadha xijaabkii madow jirkeedii taabanaynin qarinaya cagaheeda canqowga ka degsan gacmihii oo inta yar maartay inta la baneeyo xilliga salaada banaan wajiga xitaa gabdhaha isagoo sunna sii qariya wajigii marka yacni walaalayaalo culimada aniga hadalkaygu maanta wuxuu yahay maamana u hiilin maayo cidna u hiilin maayo laakiin culimada ha ku degdeginina dadka Soomaaliyeed sida culimadu inay ilaaliso oo diinta ilaaliso mas'uuliyad uga saarantay oo xaq ina soo gaarsiiso ayaa inagana mas'uuliyad inooga saarantay inaan culimada iyo diinteenaba ilaalino qofki ilaahay caayay baynu qabiil ku taageeraynaa kii rasuulka kaleey salaatu salaam caayay baynu qabiil ku taageeraynaa tii isqaawisa baynu qabiil ku taageeraynaa goorma ayaynu khaladkeena saxayna hadaynu wax walba qabiil ka dhigno hadda maamadu waxay leedahay dadkiisa marka hore dadkiisa ha soo sheego iyadu miina dadkii sheekh ahayn markaasaa kuwa u sii sacabtay markaasaa loo kala safanaya markaasaa odayaasheedii iyo odayaal kale iyo dad kale hadlayaan oo sheekhii subxaanallah mid baa wuxuu leeyahay sheekh umul hadduu naga jeclaado khadiijaan siino war ilaahay ha laga cabsado ummadda ilaahay hal nabadgeliyo culimada hal nabadgeliyo culimada jawaabistooda yaan lagu degdegin ka ficil celintooda yaan lagu degdegin hadii ay wax ka khaldamaan aniga hada sheekha inta yaraan isleeyahay ma dhahayo sheekhu waa khaldan yahay laakiin inta yaraan isleeyahay niyada iskale sheekhu waxa fiicnaan soo hadlo inuu u nasteexeeyo ma jeclaan lahaa niyadahan hadana wuxuu soo gudbinaya waa qaala Allah qaala rasuulullah ilaahay ka cabsado ciroole meesha laga waaniyo adduunku waa gabagabo marka ku degdeginina culimada qabiyaaladan iska daaya dadka sheekha qabiyaaladan sheekhu qabiil male hilibka culimaduna way naga xaaraan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan uga cabsano ilaahay anigana wixii dambi yahay iga cafiyaan ku hadlay wixii maarta